salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha ciyaaraha caalamka ee janalka bartamaha May. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. Qodobada xogaha ciyaaraha caalamka aad maanta ku daawan doontaan waxaa kamid ah warar cusub ayaa ka soo baxaya xaaladda ciyaaryahan Martin Delaney. maxaa ugu dambeeyay David De Gea iyo Manchester United kadib markii Messi xalayta garoonka laga saaray. waa kuwa lixda ciyaaryahan ee aanan xirfadooda ciyaareed weligood kaarka casaan qaadan. maxaa uu ka yiri Messi kadib kaarkii casaa ee uu qaatay inta lagu guday jiray kulankii xalayta ee jiray. kulamada caawa laga ciyaari doono wareegga 16 koobka qaramada qaaradda Afrika iyo Ameerika. finaalka koobka adduunka dumarka 2019 saacadaha ay soo gali doonaan iyo ciyaaryahan Theo Hernandez oo ugu dambeyntii ku biiray kooxda kubadda cagtaasi AC Milan. wararka ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ayaa qayb ka ah barnaamijkeena. inta barnaamijka ugu gudagalin haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar, like nagu dhiirigeli, u share garee asxaabtaada. wax walba ay fikirkaaga qaybta faallada inoogu soo dir. mahadsanid. isku soo noqod wacan. Ajax ayaa shuruud hor leh ku xirtay Juventus qorshaha la saxiixashada xidigeeda Martin Delaney. waxaa waji kala yeeshtay wada hadallada u dhaxeeya kooxaha Juventus iyo Ajax ee ku aadan la saxiixanshaha xidiga daafaca da'da yar ee kooxda Ajax oo ciyaara ee Martin Delaney. kooxda reer Netherland ayaa iska diiday dalabkii ugu horeeyay ee ay Bian Gineri ka gudbisay daafaca dhalinta yar iyadoo ku adkaysanaysa in xidigeeda ay ku iibisa lacag gaaraysa 75 milyan. Ajax ayaa hadda dardargelinaysa qorshe kale oo ay Juventus kula saxiixan karto Martin Delaney. kooxda haysata horyaalka dalka Netherland ayaa doonaysa inay heshiiska la qayb dhigto waryahanka dhalinyarada ah ee Musa Kane. waa sheeko kale oo xiiso badan balse lama hubo go'aanka The Old Lady ay ka qaadan doonto arrinta maadaama ay muhiim u arkaan ciyaaryahan Musa Kane ka oo ay horaan iska diideen in Everton ay kaga iibiyaan 30 milyan oo pound. weli way furan tahay fursadda ay Juventus ay kala saxiixan karto kabtanka kooxda Ajax Amsterdam Martin Delaney iyagoo horaan heshiis shakhsi ah la sii gaaray, balse xaaladda ayaa ku xirnaatay markan ciyaaryahan Musa Kane inay kala wareegaan kooxda kubadda cagtaasi Ajax Amsterdam si ay u siiyaan ciyaaryahan Martin Delaney. waan arki doonaa wararka ku soo kordha. dhanka kale maxaa ugu dambeeyay David De Gea iyo wararka kooxda kubadda cagta Manchester United, bal xaaladdu intay maraysaa. golaha David De Gea ayaa ugu dambeyn diyaar u ah in uu qalinka ku duubo heshiis cusub uu ku sii joogi doono garoonka Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United. David De Gea ayaa diyaar u ah inuu aqbalo heshiiska cusub ee ay Manchester United u soo bandhigtay isagoo ugu dambeyn ka xaliyay cabashiyihii mushaariyada ahayd. waxaa jeebka lagu shubi doonaa toddobaadkii adduun lacageed gaaraya 350 iyadoo tababaraha Manchester United uu hadda dagaal u galayo sidii uu kooxda ugu sii celin lahaa xidiga baxsadka ka ah kooxda ee Paul Pogba. dhanka kale kadib markii uu Messi xalayta garoonka laga saaray, waa kuwa lixda ciyaaryahan ee xirfadooda kubadda cagta wax roosaanan qaadan. kabtanka xulka qaranka Argentina iyo ciyaaryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa lagu qasbay in uu qaato kaarka cas markii ugu horeysay kulan rasmi ah inta lagu guday jiray ciyaartii xalayta jili ee tartanka Copa America 2019 ee ka soconaya dalka Brazil. Lionel Messi ayaa muran xoogan u dhexmaray xidiga xulka qaranka Chile ee lagu magacaabo Gary Medel daqiiqadii 37 ee dheesha. garsooraha ayaana go'aansaday inuu si toos ah ciyaarta kaga saaro Lionel Messi. sidaas daraadeed Lionel Messi ayaa ka dhigan inuu qaatay kaarkiisii ugu horeeyay ee casana kulan rasmi ah xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, iyadoo ay xusid mudan tahay in Messi uu hadda ka hor qaatay kaarka roosaha kulan saaxiibtinimo ay wada ciyaareen Hungary sanadkii 2005 isagoo aan weli wax kaara cas aan ku qaadanin kooxdiisa kubadda cagta Barcelona. haddaba kadib kaarka cas uu qaatay Lionel Messi, waa kuba xidigaha lixda ka kooban ee aan weligood qaadan kaarka cas. waxaa ugu horeeya Andrés Iniesta waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ciyaartoydii ugu fiicneyd 20 sano ee ugu dambeysay. waxa uu xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta qaatay 65 jaalle mana uusan qaadan wax kaar cas.
Raul Gonzalez waxa uu isna markaasi ka mid yahay xidigaha aanan qaadan kaarka cas. intii uu kubadda cagta ciyaarayay Raul Gonzalez ma uusan qaadan kaarka cas, inkastoo uu kulamo badan ku ciyaaray garoomo kala duwan iyo weliba horyaalo kala duwan, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xidigaha ugu dabeecadda wanaagsan kubadda cagta. Gary Lineker, xidigan reer England, waxa uu tusaale u yahay qof walba, weligiis ma uusan qaadanin kaar rosa, sidoo kale ma uusan la kulmin garsoore gaar digniina ama jaalaha ah. waxa uu soo ciyaaray kooxaha Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham Hotspur, Inigo Graves ee dalka Japan. Lineker waxa uu ciyaaray in ka badan 565 kulan, isagoo dhaliyay 281 gool. Michel Platini waa mid ka mid ah halyeeyada kubadda cagta ee dalka Faransiiska, weligiis ma uusan gudoomin kaarka cas. 660 kulan oo ciyaaray xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta. laacibkii hore ee kooxda Juventus ayaa waxa uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta xiisaha badan ee Ballon d'Or 3 jeer. xidiga shanaad waa xidiga lagu magacaabo Philipp Lahm ee kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Bavarian ee Bayern Munich. daafaca reer Germany ayaa ciyaaray ku dhawaad 700 oo kulan, waana ciyaaryahan kale ee aan xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta qaadanin kaar rosa. waxa uu ku caanbaxay inuu ciyaaro kubadda cagta ee nadiifa, taasoo ka dhigan inuu ka mid noqdo ciyaartoydii ugu muhiimsanayd kooxda kubadda cagta Bayern Munich. ciyaaryahanka lixaad waa Karim Benzema, xidiga reer France ayaa ka mid ah ciyaartoyda inta ay ku guda jiraan garoonka ciyaarta kubadda cagta ee sida nadiifka u ciyaara. wariyaanka kooxda Real Madrid ee xulka qaranka France ayaana weligiis gudoomin kaarka rosa xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta. dhammaan xidigaasi waxay ahaayeen kuwa aanan gudoomin kaarka rosaha intii xirfadooda kubadda cagta ay socotay. Messi iyo Ronaldo oo loolan adag kala dhaxeeyo kubadda cagta waa kuwa markaasi qaata kaarka rosaha. dhanka kale maxaa uu ka yiri Lionel Messi kadib kaarkii casaa ee uu xalayta markaasi qaatay? kabtanka xulka Argentina Leo Messi ayaa si caro leh kaga hadlay kaarkii casaa ama rosaha uu qaatay inta lagu guda jiray kulankii xalayta ee Chile. xulka qaranka Argentina ayaa xalayta ku guuleystay kulankii kaalinta saddexaad ee Copa America kadib markii 2 gool iyo 1 ay kaga adkaadeen Chile xilli Messi uu garoomada kaarka cas kaga baxay. haddaba shabakada lagu magacaabo TYC Sport ayaa soo xigatay waraysi uu Messi bixiyay ciyaarta kadib, waxaana hadaladii laga soo xigtay Messi ka mid ahaa: waxay arrintan ku dhammaan lahayd kaarka digniinta ama jaalaha aniga iyo weliba ciyaaryahanka kale, laakiin waxa ay noqon kartaa inay sabab u tahay hadaladii aan sheegay kadib kulankii la soo dhaafay ee Sabtidii, balse waxaa muhiim ah in xulka uu si fiican kaga dhameystay tartanka. had iyo jeer waxaan sheegaa xaqiiqda, taa oo iga dhigaysa in aan noqdo mid degan oo raalli ah haddii wixii aan sheegay ay saameyn leedahay. aniga waxba igama gelin. had iyo jeer waxaa si daacad ah u sheegi doonaa wax walba ee xaqiiq ah. Messi ayaa hadalkiisa sii wata, waxa uu yiri: waxaan sheegay guusha kulankii kaalinta saddexaad ee Copa America sababtoo ah waxa ka dhacay tartan waxay ahaayeen ixtiraam darro, mana doonayo in aan noqdo qayb ka mid ah midaasi. waxaan si taariikh ah uga tegi doonaa tartankan anigoo madaxayga aan kor u qaadayo kuna faanayo kooxdan ee soo bandhigtay wax walba. waxaan rajaynayaa inay heli doonaan ixtiraam, waxa ay haystaan wax badan si ay u soo bandhigaan. maanta waxaan dhalinay goolal, taas ayaana kooxda ka dhigtay inay u ciyaarto si ka duwan sidii hore. Messi ayaana arag ka muujiyay kaarkii cas ee xalayta uu qaatay. kulamo xiiso badan ayaa xalayta laga ciyaaray koobka qaramada qaaradda Afrika. Masar waa ay ku daysay Egypt. Mohamed Salah iyo xulkiisa qaranka Masar ayaa xalayta oohin iyo waliba murug kala baxay garoonka Zaire Stadium ee wadanka Masar caasimadiisa Cairo. haddaba kulamo kale ayaa laga ciyaari doonaa wareega 16-ka koobka qaramada qaaradda Afrika. sidoo kale finaalka Copa America caawa ayaa lagu ballansan yahay. finaalka koobka adduunka dumarka isna caawa ayaa la ciyaari doonaa iyo saacadaha ay soo gali doonaan. bal aan u guda galno tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2019 ayaa si habsami looga soconaya magaalada Cairo ee caasimada dalka Masar, oo sanadkan iyagu ay martigelinayaan tartankan. waxaana la isla soo gaaray wareega 16-ka
koobka qaramada qaaradda Afrika iyadoo caawa la ciyaari doono laba kulan oo ka tirsan waxaa is arki doona xulalka kala ah Madagascar vs Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo sidoo kale kulan ciyaareed dhexmari doona Algeria iyo waliba xulka qaranka Guinea ama Guinea. haddaba saacadaha ay kulamadaasi soo gali doonaan ayaan eegaynaa. hal saac oo habeenimo waxaa soo gali doona ciyaarta dhexmari doonta Madagascar vs Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa soo gali doonta. ciyaarta kale waxay soo gali doontaa 10 habeenimo Algeria iyo xulka qaranka Guinea ama Guinea. dhinaca kale waxaa caawa la ciyaari doona kulanka finaalka Copa America iyadoo ay ku wada ciyaari doonaan xulka Brazil iyo Peru. ciyaarta ayaa soo gali doonta 5 saac habeenimo ama 11 habeenimo ay soo caga dhigan doonta. waa Brazil iyo Peru waa kulan aad u xiiso badan. halka sidoo kale maqribnimada maanta la ciyaari doona kulanka finaalka koobka adduunka dumarka waxaana wada ciyaari doona xulalka gabdhaha USA iyo xulka qaranka Netherlands. ciyaarta soo gali doonta 6 maqribnimo USA vs Netherlands waana kulan xiiso iyo xamaasad markaasi leh. waana kulan daawasho mudan. waxaan arki doonaa isna wixii ku soo kordhay ciyaaryahan Theo Hernandez isna waxa uu ku beeray kooxda kubadda cagta AC Milan. kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa faahfaahisay heshiiska ay Real Madrid kaga soo qaadatay ciyaaryahan Theo Hernandez. Milan waxa ay sheegtay in daafaca reer France in uu qalinka ku duugay qandaraas 5 sano uu ku sii joogi doono garoonka San Siro. bayaan ay soo saartay kooxda AC Milan oo ay ku faahfaahisay heshiiska ay kula soo wareegtay Theo waxa uu dhignaa sidatan. AC Milan waxa ay ku dhawaaqday inay heshiisa kala gaartay kooxda Real Madrid xuquuqda Theo Bernardo Francisco Hernandez. Theo Hernandez ayuu xidigan markaas ku magac baxay. daafacan garabka bidix ee France ayaa kooxda uga soo biray heshiisa joogto ah waxa uuna qalinka ugu dugay qandaraas 5 sanadood ah oo 30 bisha June ee sanadka 2024 ayuuna dhici doona qandaraaskiisa. ciyaaryahanka ku dhashay magaalada Marseille 6 bishii October 1997 ayaa ka soo baxay akademiyada Atletico Madrid waxaana safashadiisa ugu horeeyay kooxda reer Spain uu ciyaaray sanadkii 2015. haatan waxa uu kamid yahay ciyaartooyda kooxda kubadda cagtaasi ee AC Milan walow markaasi uu kooxda kubadda cagta Real Madrid waqtiga qurux badan uu la soo qaatay balse waxa uu ku dhibtooday ciyaaryahankan in uu boos joogto ah ka helo falsafada kooxda kubadda cagta Real Madrid. ugu dambeyntii waxa uu ku biray kooxda kubadda cagta AC Milan. watahay inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni xogaha ciyaaraha caalamka ee aad kala socoteen janaalka bartamaha May tan iyo barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.